بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعيدا ليراه سعيد مؤمن علي ودأديدنا أي تهي صدان إيو تضبجر ودقن نواحيدا هودان وحال كان كشيغا إن بدن تاريخيدا هورا إيو تان دنبو إنay wanaagsan tahay tan dambo oo ana kasoo baritan kasoo galay dhinaca iskuulka Anwar caruurta markaan geeyay aan kasoo banaan baxay ay tahay heerka aan ku marayna ilmaha xaqooda oo agoonta ah oo liga caawin shaqadeydana ay tahay farshaxan markii hore oo haddana waliba farshaxankii wado oo ka caawinaya in badan in garab aan ka helno taas aan jecelnahay xagga qaybaha caruurta in wax lagu qabto حق اسكولka qayb badan waan ka haysanaa waxaan sii rajaynaynaa in badan haddana mid balaaran inaan sii helno xagga qoys ahaan markii loo soo qaadanayo si guud ee wax hadda on faraa ugu hayno ma jirto waxaan rabnaa ilaahana caawin karo inaad na caawisaan in badan gacantiina waa ina soo gaartay mid taas ka sii wanaagsan oo aan sii jecelnahay idinkan Allah idin soo dhiibo waa idin soo duceynaynaa in badan waxa hadalkeedana oo ku socdaa maama xaawo qofka hadda caruurta anaga gacanta nagu qabtay in badanna aan amaanayno amaanteena ay ku socoto kororsi badanna aan jecelnahay kullu aan arkin oo maqalkeeda badana intaasan hadda ka ficilada aan ka wata ducada iyo amaanta badan oo xagga iskuulka Anwar ku socdo oo maamadii ay tahay meesheedii oo jecelnahay haddana inaan is aragno in badan oo horteeda ku caawano oo jecelnahay wax badan inay noo qabato xagga guriga ama xagga banaanka wax walba waxay ahaato mid ishorjoog iyo mid hadda mid iyadoo aan hortaagnayn wax way noo qabato haddana mid ishorjoog aan jecelnahay inaan horteeda ku caawano wax walba aan ka niraado oo noogu qabato intaasaan meesha ku sheegaa ilmaha tirada waxa waaye Muriidi Axmed Xasan Maxamed Deeq Axmed Xasan Ikraan Axmed Xasan Xamdi Axmed Xasan يعني وسعيد مؤمن علي وماشان كهدلاي وعيالك أظن لماذا إن بدن أيام لسوق قريب كينا إلهي وحن كبرني إن نقدن إدوال بو أي جارتو لمبالا أما صبر أما كهدل انتبو وحن جعلنا إلهي نعابيان إله نعابين كرو waxaan halkan ka sheegaa inaan dhaqaalo oo macnaa ansaas u farbadneen oo ka bilowda cawdaas waxaan ka inaan meesha ku hayno aan rajaynayo in ka badan inaan helo dadka walaalahayga mas'uuliyiinta ah kamid ah siiba oo hortayda hadda taagan maam xaawa ayaan u sheegaa intaba iyo dadkii soo raacay